Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalaha Soomaaliyeed waan idin salaamay. Waxaan ku guda jirnaa akhrintii buuggii loogu magac daray 4000 Essential English Words. Waxaan kaga guda jirnaa buuggiisii koowaad. Maanta waxaan ka bilaabi doonaa akhrinta Ilaahay hadduu raalli ka noqdaa cutubka 21 ee page-ka 128. cutub waliba alaab waxaana lagu baraa markaasi ereyo markaasi gaaraya ilaa 20 erey ayana lagu baraa. ereyga maanta ugu horeeya waxa uu yahay appear waa u muuqasho. qeexitaanka waxaa leeyahay to appear inuu ku muuqda is to seen waa inaad aragtaa sheygaasi aada u jeedaa. tusaale waxaa layidhi she appeared waxay u muuqdaa to be sad, qof murugaysan ayay u muuqdaa. she was crying way ooneysay. ereyga xiga waxaa waa base waa aas-aasi mise meesha ugu hooseysa shay ayaa base lagu magacaabi karaa. qeexitaanka waxaa leeyahay the base sheyga aas-aasiga is the bottom waa meesha ugu hooseysa of a something ee shay. tusaale waxaa leeyahay the base of the table miiska meeshiisa hoose ee aas-aasiga haas wuxuu leeyahay 3 legs 3 lug ayuu leeyahay. ereyga xiga waxaa waa brain waa maskax. waxaa leeyahay markaas qeexitaanka the brain maskaxdu is organ waa xubin in your head ee madaxaaga markaasi ku jirta taasoo lets you think aad ku fikirtaa. tusaale waxaa leeyahay marka you must use waa inaad isticmaashaa your brain maskaxdaada to solve isa u xaleysa the problem caqabada. ereyga xiga waa career waa xirfad. career xirfadu is a job waa shaqo taasoo you do aad sameysaa for large part of your life noloshaada inta badan shaqada aad sameysaa waxaa la yiraahdaa markaasi career xirfad. tusaale waxaa leeyahay he was in a hospitality business. markaasi waxaa leeyahay wuxuu ahaa markaasi mid martigeliya business ganacsiga for most of his career markaasi xirfadiisa inta ugu markaasi badan. clerk waxaa markaasi waa karaane af Soomaaliya karaane ayaa loo yaqaanaa. waa shaqaale inta badan xogaha markaas meeshaas uu ka shaqeeyo keedii ayaa clerk la yiraahdaa karaane. qeexitaanka waxaa leeyahay clerk karaanuhu is a type waa nooc of a worker ee shaqada kamid ah mise shaqaalaha kamid ah. clerks karaanuhu is a store clerk markaasi waxaa leeyahay markaasi karaanuhu in a store waa baqaar ama help caawiya customers markaasi macaamiisha caabiyo. tusaale waxaa leeyahay the clerk karaanihi added up her bill waxay ku dartay markaasi biilkeedii for groceries ayay ku dartay. ereyga xiga waxaa waaye effort waa dadaal. qeexitaanka waxaa leeyahay effort dadaalka is a hard work waa shaqo adag or an attempt mise isku days to do something aad ku sameyneysaa shay. qeexitaanka waxaa leeyahay he always mar waliba puts a lot of effort wuxuu geliyaa mar waliba dadaal ayuu geliyaa into his studies waxa uu baranayo ayuu waxa uu geliyaa markaasi dadaal badan. enter waa galis. to enter inaad gashaa a place goob waa inaad gashaa is to go into it waa inaad sheygaas aad aadaa. qeexitaanka waxaa tusaale waxaa leeyahay two guards laba waadi ayaa greeted me ani isalaantay as I entered marka aan galay the front door markaasi albaabka kore markaan galay labada waardi waa islaameen. excellent waa markaasi excellent aad u fiican. when something markii shay is excellent u yahay waa aad u fiican sheygaas is a very good aad buu u fiican yahay. tusaalaha waxaa leeyahay good excellent score waxaan helay markaas natiijo fiican on my school test. markaasi imtixaankiina laga qaaday iskuulka natiijo fiican ayaan helay oo sareysa. hero waa haliyey. hero haliyeyka is a brave person waa qof geesi ah who does not think who kaasoo does sameeya things waxyaabo to help uu ku caawina others dadka kale. tusaale waxaa leeyahay together caruurtu the man ninka in the blue and red costume canuga markaasi mise ninka markaasi gishana ayaa laleeyahay dharka gaduudka iyo markaasi buluuga was a real hero waa markaasi waa geesi xaqiiq ah. ereyga xigaa waa harry degdegis waa harry degdegis. to harry inaad degdegtaa is to do waa inaad sameysaa something shay quick lasoo dhaqso aad u sameysaa. tusaale waxaa leeyahay I harried waxaan u degdegay home guriga on my back waxaan ugu degdegay baaskiilkayga.
waxaan u gudbaynaa pageka 129 ayaan u gudbaynaa oo ka mid ah markaasi 20ka erey ee maantana la siinayo. ereyga ugu hore waxaa waaye waa inform waa wargelin. qeexitaanka waxaa leeyahay to inform inaad wargelisaa someone qof is to tell una sheegtaa them iyagu about something shay inaad u sheegtaa ayaa waxaa la yidhi inform waa wargelin. tusaalaha I called waan wacay an informed waxaan wargeliyay her iyada about my idea fikradeeda ayaan markaasi wargeliyay. ereyga xigaa waa letter. intaas kadib letter waxaa la yidhi kadib means waxaa la jeeda after the present waqti xaadirkan kadib ayaa letter la yiraahdaa. expected or usual time la rajaynay ama waqti iska caadi ah. tusaalaha waxaa leeyahay markaas she missed waxay seegtay that trainkii ayay seegto trainka ayaa ka tagay sidaas darteed she will arrive a little later waxay imaan doontaa in yar kadib than expected intii la rajaynayay. trainkii ayaa dib ugu dhaco iyadana waxay imaan doontaa waqtigii la rajaynayay in yar kadib ayay imaan doontaa. leave waa tagis. ereyga xigaa waa leave tagis waa ama bixis. ereyga waxaa leeyahay qeexitaankiisa to leave means waxaa lala jeeda to go away waa inaad baxdaa from someone. to go away waa inuu baxaa from someone qof or something shay. tusaale waxaa leeyahay he packed his bag wuxuu qaatay boorsadiisii and was ready wuxuuna diyaar u ahaa to leave inuu ka tago for home guriga. ereyga xigaa waa locate jiho. to locate inaad jihisaa something shay is to found it waa inaad heshaa shaygaasi. wuxuu yahay qeexitaanka tusaale waxaa leeyahay could not locate ma heli karo my kids furihii in the house guriga kama heli karo. ereyga xigaa waa nurse kalkaaliso mise kalkaali is a person waa qof ayaa laleeyahay who kaasoo helps caawiya sick people dadka xanuunsan in the hospital ee isbitaalka jiifa. tusaalaha waxaa leeyahay nurse kalkaaliso mise kalkaaliya helbet mi wuu caawiye get better saan u fiicnaado. operation waa qaliin. operation qaliinku waa markii weyn ee dhakhtarku replaces uu bedelayo ama removes oo ka saarayo something wax uu ka saarayo in the body ee jirka uu ka saarayo. tusaale waxaa leeyahay markaa the operation qaliinka on my arm ee garabkeyga was success waa lagu guuleystay. ereyga xigaa waa pain xanuun waaye. pain waa xanuun. pain xanuunka is a feeling waa inaad darintaa that you have inaad uu ku haayo when you are hurt markaad dhaawac tahay. xanuunka waa dareen taadiyo aad dareentaa markaad dhaawacan tahay ee lee. tusaale waxaa leeyahay his head madaxiisa was full of pain madaxa ayaa zaaid u xanuuna taasaa lala jeeda. his head madaxiisa ayaa was full of pain madaxa ayaa zaaid u xanuunayo waa tusaale. markaasi reviews waa diidis. to reviews inaad diidaa something shay is to say waa inaad no maya waa inaad tiraa to it shaygaas aad tiraaha. waxaa leeyahay qeexitaanka the dog eega reviews wuxuu diiday to play inuu ciyaaro with the cat bisada inuu la ciyaaro. ereyga xiga waa thought thought ama umalayn is a use waxaa la isticmaalaa second idea markii markaasi fikir labaad makes uu sameeya the first seem surprising. marka waxaa leeyahay is used waxaa loo isticmaalaa when markii the second idea fikradii xigtay makes ay sameysa the first seem surprising. fikradii xigtaa midii ka horeysay inay sameysaa wax la yaabo ayaa thought lagu macneeyay. tusaalaha waxaa leeyahay markaasi thought inkastoo he was overweight oo culusay he liked to be active wuxuu jecel yahay inuu noqdo active mid firfircoon. various kala gedisan waa ereyga ugu dambeeya. various kala gedisan. qeexitaanka waxaa leeyahay if something haddii shay is a various u yahay mid gedisan amise ka gedisan there are many type waxaa jira noocyo kale of it ay shaygaas uu leeyahay. tusaalaha she owned waxay lahayd shoes kabo of various styles ee markaasi naqshado kala duwan leh. halkaas waxaan kusoo gabagabeyneynaa 20ka ereyna la baraayay markaasi pageka 128 iyo pageka 129 waxaan u gudbaynaa pageka 130 iyo pageka 131 labadaas waxaa noogu qoran markaas su'aalo aan kasii gudbaynaa pageka 132 pageka 132 ayaan u gudbaynaa waxaa noogu qoran sheekadaasoo lagu dhex lifaaqay 20kii erey ee hadda aan soo baranay. markaas sheekadaas waxaa loogu magac daray Katie waa gabar magaceed ayaa loogu magac daray.
waxay leedahay markaasi I first met waxaan la kulmay marka hore waxay ku bilowday sheekada I first met waxaan marka hore la kulmay 8 years old Kitty Kitty oo 8 sano jir ah ayaan la kulmay on rainy afternoon galab roob u da'ay ayaan la kulmay I was a nurse and waxaan ahay kalkaaliso at hospital isbitaal ayaan ka ahay the clerk karaanaha at the desk markaasi shaqada lahaa told me ayaa ii sheegay me aniga about Kate ayuu iga waramay she was there halkaas inay joogto ayuu roobmay because maxay she felt waxay dareemaysaa a lot of pain xanuun badan ayay dareemaysaa ayuu sheegay the doctor is dhaqaatiirtana located waxay markaasi waxay ku sheegeen oo ay ku jiheeyeen problem caqabada at the base of the brain maskaxda aaskeeda inuu dhibka ka jira ay markaas ugu sheegeen dhaqaatiirtana I knew one oga she was a special inay tahay qof qaas ah even xitaa before she got better intaysan fiicnaan ka hor waan ogaa I always mar walba remember Kitty as a hero mar walba hit waxaan markaas u xasuustaa aniga inay tahay haliyey when I entered Kitty's room aniga markaan galay guriga mise qolkii markaasi Kitty she was not in her bed ma fadhisaba markaasi sariirta ma fadhisaba she was in a chair waxayba fadhisaa markaasi kursi next to u dhow Tommy kursi u dhow ayayba fadhisaaba a little boy waana wiil yar Tommy ninkaasina thought inkastoo Kitty gabar yiraahdo did not feel well aysan dareemeynin inay caafimaad qabta she was playing with Tommy haddana Tommy ayay la ciyaaraysaa and his toys iyo bombalayaashiisa ayay la ciyaaraysaa it took a lot of effort waxay ku qaadatay dadaal badan for her iyo just to sit in the jail inay kursigaas ku fadhiisato gabadhaas Kitty yiraahdo dadaal badan ay ku qaatay but laakiin she played with Tommy laakiin waxay iska la ciyaaraysaa Tommy because maxaa yeelay it made him happy waa uu farax gelinaya Kitty gabar yiraahdo was always manulba smiling way dhowl cadeynaysaa and never appeared manu u muuqato marna to be in a pain qof markaasi xanuun qaba she refused waxay diiday to just lie in a bed inay sariirta ka jiifta ayay diiday one day maalin I found her waxaan helay her painting a picture sawirkeeda ayaan helay marka later intaas kadib she gave it to one of the other patients waxaan siiyay mid ka mid ah markaasi she gave it waxay siisay sawirkaas one of the older patients mid ka mid ah bukaanadii ugu weynaa ee xaruntaas jooga ay siisay another day maalin kale she went outside waxay aaday banaanka to get flowers usoo heshay haddana ubaxyo for another sick little kid girl gabar kaloo xanuunsan inay ubaxyo u keento ay haddana banaanka u aaday Kitty gabar yiraahdo meed waxay sameeynaysay everyone qof walba ay ku sameeynaysay smile inay ka dhoola cadaysiiso qof walba ay ka dhoola cadaysiin jirtay ayaa leeyahay markaasi the doctors dhaqaatiirta Harriet waxay u soo degdegayeen to fix inay markaasi hagaajiyaan the problem caqabada in his brain ee maskaxda markaasi Kitty ku habsatay the operation qalinka was successful waa loo guuleystay the doctors dhaqaatiirta informed waxay wargeliyeen the hospital staff shaqaalaha isbitaalka waxay wargeliyeen of the good news akhbaartaas wanaagsan Kitty Gabriela was fine way fiican tahay she soon felt excellent dhawaan waxay dareentay markaasi excellent inay aad u fiican tahay mise heer sare u fiican tahay ay dareentay she got better way fiicnaatay and was able waxayna awoodaysay to leave inay ka tagtaa the hospitalka in a month later markii qalinkeeda lagu guuleeyay bil kadib inay ka tagi karto isbitaalkii ay dareemisay I have had a long career waxaan markaasi leeyahay ayay tir xirfad markaasi dheer as a nurse kalkaalisinimo waxaan u leeyahay xirfad dheer ayaan u leeyahay tiri I have met waxaan la kulmay many patients bukaan badan ayaan la kulmay however zul baan noqotay I have never met lamaanan kulmi another girl gabar kale maana la kulmin la Kitty oo kale wili gabadhan oo gabar lamid ah maana la kulmin ay leedahay even xitaa after she got well hadii ay markaasi ay fiicnaatay xataa she still came to the hospital isbitaalka waa noogu imaanaysaa haday fiicnaato canuunkii lagala dagaalamay la daaweey xitaa wili isbitaalku ay nagu soo booqata ay tiri she played various games waxay ciyaaraysaa markaasi ciyaaro kala duwan with the young patients waxay la ciyaaraysaa markaasi bukaanka yar
ay la ciyaarayso markaas ee dhalinyarada ah. She read many books, waxay akhrisaa buugaag badan. To the older patients, waxay u akhrisaa markaasi dadka waaweyn ee bukaanada ah ayay u akhrisaa. sidoo kale Kitty's kind heart yacnaa waxaa leeyahay markaasi Kitty's kind heart naxariista mise beerjilaaca ee Kitty helbed wuxuu caawiyey heer iyadu ka caawiyey get better inay hesha fiicnaan so quickly si dhaqsa. She iyadu is a hero to me, waxaa markaasi waa halyeygayga ayay tiri. And everyone qof walbana else at the hospital, qof walba isbitaalka joogay anigaba halyey ay noo tahay le markaasi. waxaan u gudbaynaa page-ka 133 su'aalihii oo markaas waxaa noogu qoran nooga yimid cashirkii Katie loogu magac daray ee markaasi 20 eran lagu baraayay si la mid ah markaasi su'aalaha waxaa la rabaa ardayga inuu xaliyo. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. waxaan qaladnay naf iyo shaydaan, waxaan asiibnay Allah subhanahu wa ta'ala mahad iska leh. salaamu